khilaaf muddo hursan ayaa ka dhex qarxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble iyadoo dawladda Kenya ay dadaal iyo juhdi ku bixinayso sidii afgarad looga gaari lahaa khilaafka badda u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kiiska badduna uu yaalla maxkamadda adduunka Hague waxaana soo baxaya inay si hoose madaxda labada dal u gaareen heshiis ku saabsan joojinta kiiska badda loogana gaari lahaa afgarad xilli maanta wasiirka amuraha dibadda ee waddanka Kenya ay soo gaartay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loo sii wado isfahamka labada dal loona fuliyo danaha Kenya saxaafiyada xalay ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu amray hay'adaha kala duwan ee dalka inaysan wax heshiis gali karin inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka madax bannaan ee Soomaaliya warsaxaafiyadka ayaa lagu yiri madaxweynaha oo gudanaya waajibaadka dastuuriga ee ka saaran ilaalinta hantida qaran iyo madax bannaanida dalkeena ayaa xeer madaxweyne ku joojiyay in hay'adaha dawladdu ay galaan heshiis isafgarad kasta oo taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka madaxweynaha oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami socodka hannaanka doorashooyinka dalka waajibaadka dastuuriga ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta xaqiijinta iyo qiimeynta iyo isafgaradyada dalkeena uu la gelayo dalalka iyo hay'adaha kale ee caalamiga waxaana xeerka madaxweynaha lagu hakiyay ilaa doorashada kadib heshiisyada hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu inaysan gali kalin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa amray dhammaan hay'adaha dawladda inay ilaaliyaan sharafta qarannimada horumarka lagu tallaabsaday ee sanadihii u dambeeyay sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan ibaatika wasiirka amuraha dibadda kadib sida qorshuhu inuu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble safar qosoodiye oo warbaahinta laga qariyo ugu baxo waddanka Kenya warsaxaafiyad goordhow ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu buriyay warsaxaafiyadkii xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana akhrinaya xogayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wartiyad xaaladda siyaasadeed ee dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida ay la wada socdaan bulshada Soomaaliyeed dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhammaan hay'adaha dastuuriga ay ka dhamaaday muddo xileedkii caadiga ah loona baahan yahay in si xilkaasnimo leh looga gudbo marxaladan kala guurka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo Soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda kuwaas oo keenay in lagu sigto in dalku uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye ra'iisul wasaaruhu isaga oo maanka ku haya mas'uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyay sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladaas adag waxaana uu howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo golahiisa wasiirada waxa ay ku guuleysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbedel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin isla markaana si tartiib ah uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka dariska ah ururada iyo dawladaha kale ee dunidu ay nagala dhaxeeyaan tallaabooyinka xallinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni dhisidda kalsoonida bulshada ee hannaanka doorashooyinka iyo wada shaqaynta saaxiibada beesha caalamka ee garab taagan si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda ra'iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale waxa uu dadaal ku bixiyay in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ah ee Soomaaliya dalalka muhiimka waa Soomaaliya isagoo socdaal ku tagay dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta kuwaas oo ay nagala dhaxeeyaan xiriir diblomaasi amni ganacsi waxbarasho ama martigeliya qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaansho ku leh kuwaas oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay dawladda Soomaaliya waxa xusid mudan in wada xaajoojyada lagu hagaajin karo xiriirka dibadeed ee Soomaaliya ay yihiin kuwa dhowraya madax bannaanida iyo siyaasada qaranka Soomaaliyeed oo waajib dastuuri ah uu ka saaran yahay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dhanka kalena xiriirinaya danaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhimista nooc kasta oo ah nacayb iyo colaad laga maarmi karo dadaalada kor ku xusan waxa ay marayaan meel wanaagsan
oo u baahan in horey loo sii wado iyada oo yoolku uu yahay in ra'iisul wasaaruhu uu gaarsiiyo kuna wareejiyo xukuumadda dhalan doonta insha Allah Soomaaliya xasiloon nabad ah oo xiriir wanaagsan la leh deriskeeda iyo dunida inteeda kale haddaba iyadoo ay socdaan shaqooyinkaas wanaagsan oo ay u muuqatay baahida loo qabo jahaynta qaabka xilgudasho ee hay'adaha dawladda marxaladda soo socota ayaa sidaa awgeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalka waxaa leh golaha wasiirada waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman waana hay'adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas'uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xil saaraya xukuumadda federaalka wada xaajoodiyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga sida ku cad qodobka 103aad ee dastuurka jamhuuriyadda inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaaraha cusub la dhaalin doono ra'iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dawladda si xil gaarsiin ah taas oo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray isla markaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dawladda haddaba iyadoo laga ambaqaadayo qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaan hay'adaha dawladda in si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ah joogtaynayana adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka iyagoo xusuusan isla markaana dhowraya go'aamadii horey uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo xafiiska ra'iisul wasaare Roble ay hareeyeen tabashooyinka laga qabo qaabka wax wada ee doorashooyinka iyadoo guddiga gobolada waqooyi ay kala noqdeen laba garab oo khilaafada ka dhaxeeya oo ku guul daraysay dhamaynta khilaafyada guddiyada gobolada waqooyi lana filayo maalinta Jimcaha in madaxda dawlad goboleedyada dalka kulmaan waxaana iska weydiiyaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya aadan xasan aadan ar idil TV garowe